aniga bil'aadin ahay sax miya qof bil'aadin kan u xumay miyaan ka mudanahay waa maya kama mudni heer waxaan gaar anay TikTok inaan furoon YouTube furoon waaye horumarkaysan ula taliyo horumarkay bis aan u gaarsiiyo Nairobi i keentay si bil'aadin ka bax ah oo Ilaahay iga saray bil'aadin ka bax ayay la dhaqmatay miyaan ka أصحابي هرت waxay sheegay waxay tahay nin rag baan horta inaan ooy ma ahan Soomaali garan xaaladii adkeed waan ka soo baxay maanta aniga waxaan u baahanahay waxay tahay waa Soomaali Maxamed Soomaali meel bay joogan dumar iyo rag iyo habeen hooyan u baahanahay qofka bili aadinka ah waxaad alooshiya dhaawac wallahi in badan waxaan rabay muuqaalka inaan ka soo hadlo laakiin sababta aan ka soo hadli waayo waxay tahay arimo jir awd aan ka soo hadli waayo balse laakiin waxaan ii sheegayaa gabadha muuqaalkii ka hadashay waa sax waa wax dhacay waa waxaan igu dhacay waa nin rag xun oo shalay qaxooti igu imaaday horta bilaayo horta naguma horeynin bilaayo la sheegay horta naguma horeynin markuu noo imaaday bilaayo naguma horeynin ana horta waan dhimani والله وبالله وتالله الدلال انت waxa xumaan walba ila imaado wallahi waxaan diyaar u ahay inaan iska celiyo balse aniga maanta xuquuq ayaan leeyahay xuquuqdeeda u doonan aniga xuquuqdeeda u doonay ay sheega xuquuq ayaan leeyahay 4 sano YouTube-keeda ka soo shaqeynaa sidii xamaal amal maanta Nairobi waa ligu jisaaray bil'aadinka markaad ka dhigato walaal ama hooyada ka dhigato dhibaatas ayuu ku geenayaa arintaas waa arin anigu dhacday alxamdulillah waa ka boogsoon waan ka kici TikTok ama YouTube aan furtana maalin buu ii kici doonaa insha Allah balse waa ligu shaqaystay xamaali wax ma dhaamin maanta in yar naxariis ah aniga bil wax man kala maqanahay waa gurigeedan ka soo tagay maxay iga doo imaan wees haday walaalnimo jirto rufyaan xun lagu dhex jiro markuu dhagaxlay iimaanay waji wanaag ugu limaado dhagaxlay halka markuu imaan dhowrka iga toogtay si